maanta heeso waxay noqdeen shay intishaar waxay noqdeen shay lagu faantamo waxay noqdeen waxyaabo dadka lagu soo dhaweeyo ilaa heer lagu magacaabay inay yihiin hanuunin ayaa lagu tilmaamay qur'aankii wax hanuunin lahaa dib u dhac ayaa loo arkay maanta wallaahi fitna ka weyn ma jirto heesihii shayaadiinnimada gabdhihii zunaada ahaa kuwii xaqa alla diiday ay ku socdeenna waxaa loo arkay waxyaabo hanuunin ah waxaad maqlaysaa hoballadii hanuuninta waxay hanuuninayaan maxay yihiin dadkay waxay ku hanuuninayaan naarta waxaa imaan doona buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dad noocaasoo kale ah oo xumaanta dadka ugu waca oo khayrka ilaahay diida ninka la yidhaahda xudayfa ibnu yamaan wuxuu yidhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula allaahi dadku waxay ahaayeen kuwa rasuulka cani alkhayri khayrka weydiista wa kuntu as'aluhu cani ashari anigu shartaa weydiin jiray buu yidhi xudayfa sababtu waxay tahay makhaafata an yudrikanii anoo ka cabsanaya haleelkeeda markaasaan maalin idhi yaa rasuula allah innaa kunnaa fii jaahiliya annagu jaahli ayaan ku sugnayn iyo jaahilnimo iyo shar فجاءنا الله بهذا الخير إلهي با خير كان نو كيني أحاديث كان إيه الدين كان إيه قرآن كان أي إله نو كيني فهل بعد هذا الخير من شر خير كان كقضاء شر ما يهي رسولك إلهي وقال نعم ها أيوه النبي خير كان شر باكر بين دونتا